السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن في كتاب الله سورة تتكون من 3 آيات، ومع ذلك رسمت منهج الحياة ووضحت طريق الفلاح وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة. وأرست هذه السورة يا عباد الله قواعد الفوز والخروج من الخسران. إنها سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس عجيبك وهذا خالق السماوات والأراضين waxay ku jirta suuradaadu gaaban. suuradaasi waxay ka kooban tahay 3 aayadood oo qura, iyadoo sidaasi u kooban haddana suuradaasi waxa ay si fiican u calaamadisay wadadii u mari lahaa qofka bani aadamka ay nolosha wanaagsan. waxa ay caddayso daaha ay ka qaaday jidka loo maro guusha iyo wadada badbaadada fi dunya wal aakhirah. suuradaasi waxay dhidibada u aastay yaa cibaad allah qawaacidda iyo tiirarka badbaadada, kuwa lagaga baxo khasaaraha adduunya kuwa aakhiraba. waa suuradda ay yaqaaniin muslimiinta badankoodu, waalcasri ina alinsaana lafii khusr. ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaartay. waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku dhaartay alcasr oo la yidhi waa wakhtigoo dhan, ama waa maalinta gelinkeeda dambe, ama waaba salaada casarba. ina alinsaana lafii khusr, insaan dhammaantiiba khasaaru ku jiraa buuhi ilaahay. khasaaruhu ku dhex jiraa oo ku dhex qarqoonsan yahay. ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat, kuwa 4 sifo le mooyaane: aliimaan wاlcamalu الصaalix, watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالصabr, alamru biاlmacruuf wاlnahyu can اlmunkar, wakadalika الصبر على أحكام الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، سورة وينديد وحيابا موجنا وحاكمنا أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وإن قررنا إيمان كود إيا خير كسيوش علايين وقند ذلك شيرين وحال قبت بهذا الدنيا آخربا مركاي كل ما لبكا مدي. سورة داسي أيس حسوس شيرين وحو طبراني كوري معجم كيسة عن عبد الله بن الحسين الأنصاري أنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. لبكم إذا أصحاب الرسولكم هدي أي كلمان ميكل تجيرين إلا متكوت ككلا وآخرية ومقشية سورة سكوبا إلا هذا سورة العصر. الإمام الشافعي رحمه الله وإلهي وبري قرآن كي معنيهيسة ربي سبحانه وتعالى وكما نيستي أقونت حديث كي فققيسة وحاول سورة المركوكات لا يسد ابن كثير وكشغي تفسير كيسة لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. dadku hadday suuradda macnaheeda baran lahaayeen, waxa ay tusinaysana ay u fiirsan lahaayeen, iyadaa ku filaan lahayd. maxay ugu filaan lahayd? waxay ugu filaan lahayd xusuusin, waxay ugu filaan lahayd waano, waxay ugu filaan lahayd aakhiro inay u sahay qaataan, waxay ugu filaan lahayd iimaanka inay xaqiijiyaan, waxay ugu filaan lahayd camalka wanaagsan inay ku dadaalaan, waxay ugu filaan lahayd ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa inay ku toosnaadaan. أيها المسلمون عباد الله، اسمعوا مني وقفات
مع كلمات وآيات هذه السورة. suuradani suurad la dhammayn kara maaha macnaheeda iyo tafsiirkeeda. si kooban baynu biidni illaahi tacaala u tilmaami doonaa macaanida ay tilmaantay iyo waanooyinka ay u xambaarsan tahay qofka muslimka ah. marka koobaad ilaahay waa dhaartay suuraddan bilowgeeda, walcasri buuhi waa dhaar. cidda dhaaranaysa waa allaha khaaliqa ah. waxa ilaahay uu ku dhaartay alcasr oo wakhtiga ah dhammaantii ama qayb ka mid ah. taasi waxay xusuusinaysaa qofka muslimka ah qiimaha uu leeyahay wakhtigu qiimaha uu leeyahay qofka muslimka ah iyo raadka uu ku leeyahay noloshiisa. waayo wakhtigaagu waa cumrigaaguna waa raasamaalkaaga. isagaa khasaare kuu soo jiidi kara ama faa'iidiyo macaash kuu keeni kara. in badan buu ilaahay ku dhaartay wakhtiga si uu addoomaha ugu muujiyo qiimihiisa. mar ilaahay wuxuu ku dhaartay cumriga nebigeenna, lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun. mar ilaahay wuxuu ku dhaartay habeenka oo wakhtiga ka mid ah, walleyli idaa yakshaa. mar ilaahay wuxuu ku dhaartay barqada oo wakhtiga ka mid ah, wadduxaa. mar ilaahay wakhtiga ayuu si guud ugu dhaartay. dadkii hore wanaagsanaa waxa ay ka fahmeen aayadaha qur-aanka ah iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam ee la midka ee wakhtiga iyo qiimihiisa ka hadlaysa qiimaha uu leeyahay wakhtigu. waxay fahmeen wakhtigoodu inuu yahay cumrigooda. maalin kasta oo wakhtigooda ka gooda ah inay cumrigoodii ka gooday, noloshoodii inay ka hadhay, inay adduunyo ka fogaysay aakhirana u dhowaysay. qaala cumar ibnu cabdilcasiis raximahu llah: ina alleyla waannahaar yacmalaani fiika facmal fiihimaa. habeenkiiyo maalintu aday kaa shaqaynayaan. waa kuwan ku gaboojinaya. mar kastuu habeen kuu kordho daabaa kuu kordhaysa iyo gabow. adigay adduunyada kaa fogaynayaan, aakhira iyo qabrigay kuu dhowaynayaan. adiguna habeenka iyo maalinta dhexdooda shaqayso. waxaad shaqaysataa wax sahay kuu noqdaa maalinta ilaahay lagu horgeyn doono subxaanahu wa tacaala. waxay aada uga murugoon jireen qadarka wakhtigooda ka mida haba yaraadee ee dhaafa iyagoo aan sahay qaadan. wuxuu yihi cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu: maa nadimtu calaa shayin nadamii calaa yowmin garabat shamsuhu naqasa fiihi ajali walam yazid fiihi camali. waxaan ka murugooda waxaan ugu murugo badanahay maalin qoraxdeedu ay ii dhacday, maalintaasoo ajashaydii ay nuqsaantay, camalkayguna aanu ziyaadin. ayuha almuslimuuna cibaad allah, ka faa'iidaysta wakhtigu waa cumrigiinne. yaanu idinku dhaafin wax ilaahay ka cadhaysiiya aakhirana idinka xumeeya. yaanu ku khasaaroobin waxaan macno adduunyo iyo mid aakhira midnaba aan lahayn. ilaahay markuu wakhtiga soo hadal qaaday waa qodobka labaade. rabbi subxaanahu wa tacaala wakhtigaa wuxuu doonayaa inaynu cibro ka qaadanno oo waana uu inoo noqdo. habeenka iyo maalinta isweydaranaya, qoraxaha soo baxaya, gaballada dumaaya, bilaha dhammaanaya, sanadadayna dhaafaya. qofka muslimkaa waa inuu ku cibro qaato oo uu ka barto ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa, ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqnimadiisa, rabbi awooddiisa mucjiska ah. waa inuu fahmo qofka muslimka ahi manaaficda iyo masaalixda iyo danaha ilaahay addoomihiisa u geliyey wakhtigaa isbedbedelaya. qaala allahu tacaala: yuqallibu allahu alleyla waannahaar ina fii dalika lacibratan liuli labsaar. ilaahay habeenkiiyo maalintuu gadgadiyaa. habeen baa baxayo maalin baa soo gelaysa, maalin baa baxayso habeen baa soo gelaya. arrinka noocaasi waa mid ay wax ku qaataan, waanana u ah dadka caqliga la dhabahaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa arrinta saddexaada wuxuu ku dhaartaa bimaa shaaa min khalqi, wuxuu doono oo khalqigiisa ka mid ah. liannahu alkhaaliqu subxaanahu wa tacaala almaaliku almudabbir. innaga say nooma bannaano inaynu ku dhaaranno makhluuq. ilaahay cid aana inaynu ku dhaarannaa xaaraan bay naga tahay. laguma dhaaran karo malaa'igta, laguma dhaaran karo nebiyada,
laguma dhaaran karo waqtiga habeenka iyo maalinta laguma dhaaran karo aabbe iyo hooyo laguma dhaaran karo wax kale lianna nabiyana sala allahu calayhi wasalama qaal wuxuu yihi rasuulkeenu man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto haddii kale dhaarta uu ku dhaartay cid aan ilaahayn waa dembi ha ka aamuso afkiisa ha ka haysto ayuha almuslimuuna cibaad allah dhaartaasi aadka u weyn dabadeed ilaahay war buu ina siiyey ilaahayna warkiisu waa run iyo xaqiiqo wax kastoo ilaahay inoo sheegayna horteennu iman doonaa ilaahay warkaa uu ina siiyey nuxurkiisu wuxuu yahay insaan oo dhan isku dar caddaan iyo madow rag iyo dumar madax iyo mijo aqniye iyo fuqaro kuwa xanuunsan iyo kuwa caafimaad qaba dhammaantoodba isku daro la fii khusrin ilaahay xataa ma odhan ina alinsaana la khaasirun insaanku waa mid khasaaray oo qura ilaahay ma odhan ilaahay wuxuu ihi la fii khusrin fiidu waa xarfu jar waa daraf wax gudala ayay tilmaamaysaa khasaarihii buu ilaahay u sawiray sidii uu yahay oo kale weel weyn oo guda leh oo insaankuna uu ku dhex jiro oo uu ku dhex qarqoonsan yahay khasaaraha aayadda lagu sheegaya waa alhalaaku wanuqsaan insaanku xaalad nuqsaan ayuu ku jiraa insaanku halaag buu ku sugan yahay maxay tahay sababtu lianna ra'sa maali linsaan huwa waqtuhu wa cumruh waayo insaanka raasamaalkiisu waa waqtigiisa iyo cumriga ilaahay uu siiyey ee geeridiisa ka horeeya faidaa sarafa cumrahu fima laa yanfacuhu fi lxayaati albaaqiya faqad gariqa fi lkhusraan hadduu insaanku ku bixiyo cumrigiisa maalmaha noloshiisa waxaan waxba uga tarahayn nolosha baaqiga ah tan adduunyadu way dhammaanaysaayo waa la hubaaye dhab ahaan wuxuu ku dhex qarqoomay khasaare wa ayu khasaaratin ya cibaad allah acdamu min bayci lbaaqi bilfani khasaaraha ka weyni muxuu yahay in qofku uu iibiyo shayga baaqiga ah aljanna waridwaan ullah wاnaciimu daa'im wama fiihi min alkaraamaat waxa uu ku iibiye uu ku bedeshayna ay tahay waxaan dhammaanayo oo adduunyada la idhaahdo wa ayu ribxin wa sacaada acdamu min shiraa'i alaakhirati bidunya guushee iyo macaashkeebaa ka weyn inaad adduunyadaada aakhiro siisato oo janno aad ku iibsato ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna ayuha almuslimuuna cibaad allah insaankaasi khasaaray khasaarihiisu isma leeka qaar baa adduun iyo aakhiraba khasaaray qaar baa adduun khasaaray laakiin aakhira aan khasaarin qaar baa khasaarahoodu uu dhammaystiran yahay qaar baa khasaarahoodu dhexda uu joogaa qaar baa khasaarahoodu uu yar yahay kullun bixasabi camalihi aladii tasababa lahu lkhusraan mid walba khasaaro wuxuu u joogaa arrinka khasaaraha u sababay halka uu joogo facalaynaa ya cibaad allah inaynu isweydiinaa waajib inagu ah ma kuwa khasaare baynu ka mid nahay mise kuwa guulaystay maxaa khasaaraha lagaga badbaadi karaa inuu insaanka ku dhacayo ilaahay uu inoo sheegay aqulu qawlii hada waastagfiru allaha liya walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin ثuma الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلهي markuu inooga waramay suuradan weyn dhexdeeda insaan oo dhami inuu khasaare dhex jiifo rabbi intaa dabadeed wuxuu inoo caddeeyey وهذا من فضل الله ورحمته caddayntaasina waxay ka mid tahay ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa iyo jacaylka ilaahay addoomihiisa khayrkiiyo wanaagga ula jecel yahay wuxuu ilaahay inoo caddeeyey sifaati الnaajiina min hada اlkhusraan sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin kuwa insaanka ilaahay uu sheegay ka mida haddana ka badbaaday khasaaraha ilaahay uu sheegay insaanku inuu dhex fadhiyo
tilmaamay kaga badbaadeen tilmaamahaasi maaha midabkooda maalkooda manaasibtooda magaca iyo maamuuska ay dadka ku dhex leeyihiin inahaa sifaatun ukhraa waa tilmaamo kale bayanahaa rabu lcaalamiin oo uu caddeeyey ilaahay subxaana wa tacaala sifada koowaad waxay tahay ila aladiina aamanuu waxaa khasaare ka badbaaday khasaaraha waxaa ka badbaadaya oo qura kuwa laga helay iimaan waa kuwa rumeeyey bima amara allahu bihi wax kastoo ilaahay uu amray in la rumeeyo waxaana asal ah waxyaabaha ilaahay uu ina amray inaynu rumayno arkaanu liimaan asitta arkaanta iimaanka ee lixda ah aliimaanu biاllahi wa birusulihi wa bikutubihi wa bimalaa'ikatihi wa biاlyowmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharihi wax allaaliyo waxaa la rumaynaya in la rumeeyo ay waajib tahay lixdaasi ayay ka farcamayaan suurtagalla qofka uma aha inuu rumeeyo waxaanu garanahayn mar haddii iimaan khasaare lagaga badbaadayo iimaankuna cilmi la-aan aanu suurtagal ahayn macnuhu wuxuu noqonayaa qof aan ilaahay diintiisa cilmiyo aqoon u yeelan qofkaasi khasaare ka badbaadi maayo iimaankii saxda ahaana ma samayn karo waayo qofku siduu u rumayn karaa waxaanu garanahayn ayuha almuslimuuna cibaad allah iimaanka waxaa ku jirta nolosha dhabta ah oo man kaana mayitan faaxyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi اظulumaat ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay qofka bilaa iimaanka ahi haba noqdo miday naftu ku jirto dhaqdhaqaaqaya dhab ahaan inuu yahay bakti waxa ilaahay addoomaha uu nooleeye nolosha dhabta uu siiye uu ku nooleeyena waa iimaanka iimaanku waa nuuru lxayaat waa iftiinka iyo nuurka nolosha isagaa lagaga baxaa mugdiyada wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi اظulumaat noloshan adduunya iimaanka ayay ku barakowdaa walow ana ahla alqura aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min aلsamaaءi wاlard walakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun ilaahay wuxuu tilmaamay dadka haddii iimaan laga heli lahaa iyo alla ka cabsi camal wanaagsan ilahay inuu u furi lahaa barakooyinka samada iyo dhulka cidhiidhi kastoo xagga nolosha ay ka dareemaan iimaan la-aantooda ama iimaankoodoo daciifoo nuqsaamay baa sabab u ah arrinka labaad ee khasaaraha lagaga badbaadayaa tilmaanta labaad waa alcamalu saalix wa camiluu saalixaat buu uhi ilaahay subxaana wa tacaala alcamalu saalix waa khayr oo dhan khayrka qalbiga laga sameeyo ee dadka kale ka qarsoon ee qofka samaynaya inuu og yahay ee dadka kale aanay ogeyn iyo khayrka muuqdee qofku uu ku hadlo ama si muuqataba uu samaynayo khayrka xaq ilaahay ah iyo khayrka xaqa khalqiga ah iyo addoomaha khayrka waajibka ah iyo khayrka sunnaha ah khayrka ah xaaraanta ilaahay uu diiday ilaahay daraaddii in looga tago kullu hada ya cibaad allahi min alcamali saalix camalkaa saalixee noocaasa qofka laga helana khasaara waa ka badbaadaya uma aclamuu ya cibaad allah waxaad ogaataan addoomaha ilaahayow ana alcamala laa yakunu saalixan ila biamrayn camalku inaanu noqon ahayn mid wanaagsan oo sababu noqdo qofka sameeyey inuu badbaado ilaa camalka laba arrimood ay raacaan arrinka koowaad waa alikhlaasu lilah waa ilaahay daraaddii in loo sameeyo arrinka labaadna waa iqtidaau nabiyi fiihi waa in nabiga calayhi salaatu aliqtidaau binabiyi fiihi waa in nebiga lagu daydo oo camalkaasi uu yahay camal nebigu ina baray ama ilaahay uu ku caabuday haddii ikhlaaska la waayo waa shirki shirkina ilaahay ma aqbalo haddii nebi raacista la waayana waa bidco bidcana ilaahay ma yeelo man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun buu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arrinka saddexaad waa atawaasi bilxaq sifada saddexaada lagu badbaadaya waa in xaqa laysu dardaarmo waa alamru bilmacruuf annahyu can lmunkar waa in wanaagga laysfaro xumaanta layska reebo waa in xaqa laysbaro waa sifo ka mida sifaadka sare ay leeyihiin dadka muuminiinta ah
waayo waa sifo ka dhalanaysa iimaankoo midhaha laga goosto ka mid ah. qofka muuminka ah iimaankiisu wuxuu ku kalifayaa an yuxiba طaacata alkhalqi kullihim lilaahi rabbi alcaalamiin, inuu jeclaado khalqiga oo dhami inay ilaahay adeecaan ay u hoggaansamaan, walow arrintaasi haba dhasho ha sababto in isagoo nool la googooyo. iimaankiisa kalifaya inuu jeclaado oo qalbigiisa ay ku weynaato khalqiga oo dhami inay ilaahay adeecaan. arrintaasina waxay ka dhalanaysaa jacaylkiiyo weynaynta ilaahay u hayo. qofka muuminka iimaankiisa midhaha ka dhalanaya laga goosto waxaa ka mid a alghayratu calaa maxaarim illah, inay gubayso aada u dhibsanayo in ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa la khilaafo, oo rabbi subxaana wa tacaala laga cadhaysiiyo oo la caasiyo. waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar. mu'miniintu iyagaa xigtaysu ah, iimaankaa walaaleeyo isu dhoweeyey. sifaadkooda waxaa ka mida wanaagga isfaraan, xumaantana waa iska reebaan. waa wadada badbaadada fi dunya walaakhira, in qofka muslimka ay wanaagga uu garanayo ciddii ka tagtay uu faro, ciddaan garanahayna uu baro, xumaanta uu yaqaanana cidda samaynaysa uu ka reebo, udha ilaahay ka baqo iska daa. waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar waulaa'ika hum lmuflixuun. kuwaasi ayaa liibaanay buu hi ilaahay wanaagga isfaraya, xumaanta iska reebaya. xaqaasi hadduu dayacmo muslimiinta dhexdooda, wanaagga la isfari waayo, xumaantana la iska reebi waayo, oo qofku idhaahdo naftayda ayuun baan anigu ku mashquulsanaanayaa, khasaaro weyn baa arrinta noocaasa looga dhaadhacaya. lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun. ilaahay wuxuu sheegay in la nacdalay reer banu israa'iil, nacdashaasoo ilaahay fariin ahaan ugu soo faray nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi ciisa. maxaa nacdashaas sababay oo naxariista ilahay in laga diriyey? waxaa sababay ilaahay bay caasiyeen, xadgudubna way sameeyeen. xadgudubkaasi waa fara badnaa, laakiin ilaahay wuxuu ka soo qaadoo tusaale uu inagu siiyey. kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu, xumaanta qaar ka midii ay sameeyaan iskamay reebi jirin. labiisa maa kaanuu yafcaluun. fattaquu llaha yaa cibaad allah. maanta aad baa xaqaasi u dayacan yahay. in badanoo muslimiinta ka midiina waxay u haystaan inuu yahay waajib cid gaara saaran, culimo iyo ducaad iyo. walihaada baa dadku ay iska dhegaysanayaan, ay iska daawanayaan, ay iska dhex socdaan xuquuqda ilaahay ee la dayacay iyo waxyaabaha ilaahay uu diiday la samaynayo. sifada afraada lagu badbaadayo waa in sabirka laysu dardaarmo, oo qofka muslimka ay walaalkiisa kale had iyo jeer ale sabirka uu xusuusiyo. asabruna waa kelmad macno ballaadhan, waxaana macnaheedaa soo ururin kara in la yidhaahdo waa xabsu nafsi calaa xukmi illaah. waa nafta in xukumka ilaahay lagu dul xidho oo dhinacna aanay u dhaafin. xukumka ilaahayna waa laba, qadarka ilaahay waa xukumkiisa. nafta in lagu dul xidho macnaheedu wuxuu noqonayaa in ilaahay qadarkiisa ku xanuujiyo aada u sabirto, oo aanad qalbiga uga cadhoon, carabkaaguna aanu ka caban oo aanu ka ashkatoon, xubnahaaguna marka qadarka ilaahay ee uu xanuujiyaa kugu dhaco ilaahay aanay caasiyin, sida qofku inuu baroorto ama inuu dhulka isla dhaco ama maryihiisa inuu jeexjeexo ama timihiisa inuu rifo ama ciidda inuu isku qaso. xukumka ilaahay nooca labaad waa xukumka ilaahay ee sharciga ah, wa huwa maa anzalahu allahu calaa anbiyaa'ihi wa rusulih. waa waxyiga ilaahay uu ku soo dejiyey rususha iyo ambiyada. xukumka ilaahay sabirka lagu sabriyo nafta in lagu dul xidhaana laba macnuu yeelanayo. waayo xukumka ilaahay ama wax layna amrayo oo layna faray, ama wax laynoo diido oo laynaga reebay. waxaa lagu amray oo xukumka ilaahay saad nafta ugu dul xidhi karta waa inaad samayso, oo naftu ma jeclo, waxay jeceshahay inay iska dayso waxyaabo kale ay ku mashquushee. nafta waa inaad ku dul xakamayso. xukumka ilaahay ee diidmada ah, wax ilaahay uu kuu diido dan aan ku hayn adduun iyo aakhiraba, isagana nafta waa inaad ka xakamayso. ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka sabra ammaanay, wax weynna u ballan qaaday.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبركو isaga laftiisa cibaada ikhlaas buu baahan yahay kuwa ilaahay daraadii u sabray wajiga ilaahay iyagoo doonaya wa aqaamu salaa salaadana oogay wa anfaquu mima razaqnaahum sirran wa calaaniya waxaanu siinay maalana si muuqatiya si qarsoonba wuxuu ga bixiyey wayadra'uuna bilxasanati sayi'a xataa waxay sabrayaan fi lmucaamalaat waayo dadka mar walba kala kulmi maayeen wax raalli geliyo ay jeclaystaan marka dadku ay xumaan ku sameeyeen bay sabrayaan oo xumaanta wanaag bay kaga jawaabayaan ma jazaa'uhum ya rabb alcaalamiin kuwa abaalmarintoodu waa maxay rabbiyow ulaa'ika lahum cuqba daar kuwaasi waxa ay leeyihiin daarta wanaagsan iyo cidhibteeda fiican daarta wanaagsanina waa aljanna fasaabiruuna wacadahum allahu biljanna kuwa sabra sabirka noocyadiisa oo dhan ilaahay janna ayuu u ballan qaaday ayuha almuslimuuna cibaad allah afartaa sifee kooban ee ilaahay inoo fududeeyey dhammaanteen ba aynu ku dadaallo khasaaraha weyn si aynu uga badbaadno guusha dhabtaana si aynu u gaadhno allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من الخسران في الدنيا والآخرة ونسألك سعادة الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد